nabigeenu calayhi salaatu wasalaam marka uu salaada u istaago uu takbiiran jiray allahu akbar buu salaada ku xidhan jiray gacmahana kor buu qaadi jiray ilaa dhagaha ama ilaa garbaha allahu akbar ayaa salaada lagu xidhanaya markaas kadib labadii gacmood waa la isdul dhigayaa gacanta midig baa la sarraysiinayaa halkaa laabta hoosteeda yar ayaa saa loo dhigaya sidaa haddaad ugu qabato waa caadi haddaad sidaa u dhigtana iyadana nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa uu sameeyey waa laga soo wariyey labaduba sax weeye halkaa markaad gaadho oo intaad la timaado waxaad la imanaysaa ducaa ulistiftaax ama ducadii lagu furfuray ama dikrigii lagu furfuranayay salaada waa kolba tii ku fudaata ee aad xafidsan tahay ayaad akhriyaysa wajahtu wajhi alladii fatara asamaawaat ilaa aakhirkeeda haddaad xafidsan tahay iyadaad akhriyaysa allahuma baacid beynii wa beyna khataayaya haddaad xafidsan tahay iyadaad akhriyaysa subxaanaka allahuma wabixamdika haddaad xafidsan tahay iyada ayaad akhriyaysa mid walba ilaa iyo aakhirkeeda ayaad gaadhsiinaysa subxaanaka allahuma wabixamdik watabaaraka ismuka watacaala jaduk walaa ilaaha hayruk taas ayaa ka mid a kuwa ugu kooban